ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي ku xiran YouTube-keena Saytuuni College kusoo dhawaada mar kale iyo video cusub hadaba hadii ay tahay daawadiga markii ugu horeysay aad soo boqoto fadlan ha hilmaamin YouTube-keena inaad subscribe ka saadho sidoo kale aad daarato qambaleelka si ay ku soo gaaraan xogaha kala duwan aan ku soo gudbino YouTube-keena sidoo kale ha hilmaamin inaad la share gareyso dhamaan asxaabtaada baahiyaha u qaba in ay ka faa'iideystaan xogaha kala duwan aan ku soo gudbino YouTube-keena hadaba asxaabay video-geena maanta waxa uu noqon doonaa video ka duwan video-dii hore waxa aanu kaga hadli doonaa system waxbarasho laga isticmaalo dunida sidoo kale laga isticmaalo wadanka Turkiga systemkaasoo dhawaan lagu soo daray mid kamid ah jaamacadaha wadanka Turkiga hadaba systemkaas ayaan rabnaa in aynu isla fahamno waxa uu yahay xog ku saabsan ayaan rabaa inaan idila share gareeyo hadaba asxaabay waxaan afeef uga dhiganayaa haddii aad tahay arday wax ka barta wadanka Turkiga sidoo kale dhigta jaamacad kamid ah jaamacadaha wadanka Turkiga oo laga isticmaalo systemkan oo aan isla share gareyn doono ee ah chance systemka haddii marka ay iswaafaqi waayaan sida ay jaamacadaadu ay u xisaabinayso iyo sida aan anigu u xisaabinayo waxaan ku leeyahay xogta anigu waxaan ku ictimaadi doonaa jaamacada Karabuk jaamacadaadku way kala duwan yihiin chance systemku way wala wada isticmaalaa laakiinse jaamacad kasta si ay u isticmaashaa marka afeef ayaan dhiganayaa haddii aad tahay arday wax ka barta wadanka Turkiga xogta aan share gareynayo iyo xogta jaamacadaadu haddii ay iswaafaqi waayaan waxaan ku leeyahay jaamacada Karabuk ayaan ictimaadaya xogteeda hadaba asxaabay videogeena waxaan ka hadli doonaa maanta 6 qodob aad u muhiimsan 6da qodob waxa ay ku leeyihiin waxaanu ka hadli doonaa chance systemku waa maxay yani chance system baa maqnaa isagu waa maxay goorma ayuu shaqeeyaa jaamacadu xilli kasta ma isticmaashaa jam systemka mise xilli aan la isticmaalin ayaa jira sidee buu u shaqeeyaa faa'iidadiisu waa maxay khasaarihiisu waa maxay sideena ayaa loo xisaabiyaa hadaba asxaabay intaasaan rabaa inaan uga hadlo sidoo kale asxaabay chance system haddaad maqasho iyo haddii aad maqasho baalida Ireland system labadaas kelmadood waa laba kelmadood isku macna ah midna waa Ingiriisi midna waa afka Turki hadaba asxaabay Jan grading system ama chance system ama baalida Ireland system waa system waxbarasho systemkaasoo qofka ama ardayga heerkiisa waxbarasho heerkiisa aqooneed lagu xisaabin doono iyada oo asaas looga dhigayo fasalka yani fasalkaaga celceliska fasalkaaga ortalamaga fasalka ayaa darajadaadii aad keentay ayaa asaas looga dhigaya hadaba asxaabay systemka noocaas waxa la yiraahdaa chance system ayaa leeyahay yani fasalka ayaa la fiirin doonaa kadibna darajada aad keentay fasalka ayaa loo fiirin doonaa wixii ay ula dhiganto ama ay u dhiganto ayaa lagu siin doonaa yani chance systemku darajada aad keentay shakhsi ahaantaada ma la fiirin doono ee waxa la fiirin doonaa fasalka ayaa koo la fiirin doonaa markaas darajadaadii adiga la fiirin doonaa fasalka hadduu hooseeyo darajo sare aad keento arday sare ayaa tahay fasalka haddii aad fiiriso darajo dhexe uu keeno adiguna darajo hoose aad keento macnaheedu waad dhacday kama dhigna waana hooseysa kama dhigna chance systemku waxa uu leeyahay waxyaalo aad uga duwan systemkii hore hadaba asxaabay chance systemka inta aan ku guda jiro videogan waxa laga yaabaa inaad maqasho dhowr kelmadood kalimaadkaasi waxa ku ka kelmad la yiraahdo ham basharinoto kelmadda ham basharinoto haddii aad maqasho videoga intaad ku jidho waxa loola jeedaa ama intaad waxbarashadaada ku jidho waxa loola jeedaa isku darka fiisegaaga iyo finalkaaga imtixaankii fiisaha baad soo qaadanaysaa boqolkiiba inta lagu saxayaad ku dhufanaysaa waxaad ku daraysaa finalkaagii waxaad ku dhufanaysaa boqolkiiba inta lagu saxayay waxa kaaga soo baxa ayaa waxa la yiraahdaa ham bashari ayaa la yiraahdaa hadaba chance system si aynu uga hadalno ama inta aan ka hadlayo ham bashari waa idiga maqli doontaa waxaan ula jeedaa fiisegaaga iyo finalkaaga isku darkooda ayaa loola jeedaa yani boqolkiiba imisa lagu saxayay fiisegaaga ku dhufo intaad keentay finalkaaga soo qaado boqolkiiba inta lagu saxayo ku dhufo darajada kugu soo baxda ayaa waxa la yiraahdaa ham bashari ayaa la dhahaa sidoo kale waxa inta badan maqli doontaa waxa la yiraahdo mutlaq diyaarlandirme oo asxaabay mutlaq diyaarlandirme waxaan ula jeedaa chance systemka intaanan la soo saarin systemkii hore ee waagi hore la isticmaali jiray yani chance systemku meesha hadduusan ka shaqeynin waxa shaqeynaya mutlaq diyaarlandirme oo ah systemkii hore ee jaamacada ee degsanaa waxa weeyaan aan isbedelayn tusaalen waagi hore jaamacadu waxay oran jirtay ardaygu
haddii konton wax ka hooseeya uu keeno fiisiga iyo finaalka haddii la isku daro wuu dhacay. yacni sanadaadkii hore 49 ardayga keena wuu dhici jiray, laakiin chance systemku 49 ardayga keena kuma dhacayo. sidoo kale waxaad maqli doontaa baalida Erlanderme ama chance system, labadaasi waa isku mid. haddaba asxaabay chance systemku goorma ayuu shaqeynayaa? intaanan ka hadlin marka ardayga waxaa jira dhowr kuliyadood baa jira ama dhowr kooxood oo ardayda ka mid ah kuwaasoo marnaba chance system aan isticmaali doonin. ardaydaasi maxaa ka mid ah? ardayda caafimaadka. haddii aad tahay arday caafimaad wax ka barta jaamacadda Karabuk, marnaba chance system maskaxdaada ma soo gelin doonto. mutlaq Erlanderme systemkii hore ee jaamacadda ayaad ku socon doontaa. sidoo kale ardayda dhigata dentistry-ga kadaalika iyaguna chance system shaqo lug kuma lahan. ardayda dhigata heerka labaad ee jaamacadda ama masterka chance system wax ay lug ku leeyihiin haba yaraatee ma jiro. laakiin ardaydaasi maadooyinka elective-ka ah, yacni maadooyinka jaamacaddu elective-ka ee doorashada ah, chance system ayaa loogu xisaabin doonaa. arday baa tahay caafimaad dhigta, koorsooyinka adiga iskaa ku khuseeya chance system laguma xisaabin doono, loomana fiirin doono. laakiin maadooyinka elective-ka ah ee doorashada ah, sejmaliga ah, chance system wuu shaqayn karaa kumana shaqayn karo. haddaba asxaabay chance systemku goorma ayuu shaqaynayaa? ardayda chance systemku waxa uu shaqaynayaa haddii la helo fasal arday 20 arday ah imtixaankood. maxaa ula jeedaa 20 arday? laba tusaale baan soo qaadanayaa asxaabi. haddaba 20ka arday baan laga saarayaa. tusaale, galaaska ardadiisa 20 arday baa laga rabaa. 20ka arday laguma xisaabin doono ardada imtixaanka finalka aanan gelin. ardada finalka gasha 20ka waa laga saarayaa. ardayda dawaamsiisliga ama maqnaanshiyaha lagu haysto waa laga saarayaa. ardayda keenta celceliskooda uu ka hooseeyo 19 fiisigaaga iyo finalkaaga marka la isku daro haddaad keento 19 iyo wax ka hooseeya haddaad keento kuma aad jidho chance systemka. sidoo kale ardayda celceliskooda fiisiga iyo finalka marka la isku daro 96 iyo wixii ka sareeya keena chance systemku kuma jiraan. tusaale yaraan ku soo qaato, galaas arday baanu haynaa. galaaska 25 arday baa dhigata. tusaale 25ka arday, laba arday ka mid ah imtixaanka ma aysan gelin. hal ardayna dawaamsilig ayaa lagu rahaystaa. hal ardayna waxa uu keenay imtixaankiisii fiisiga iyo imtixaankiisii finalka markii la isku daray 19 wax ka hooseeya. chance system ardaygaasi hal arday baa jira. sidoo kale waxaa jira hal arday oo markii fiisiga iyo finalka la isku daray 96 keenay. haddaba galaaskaasi chance system ma lagu dabiqi doonaa mise ma lagu dabiqi doono? waxaan leenahay 25 arday baanu haysanaa. waxaan ka saarayaa ardada aan imtixaanka gelin finalka, ardada dawaamsiiliga ku hadhay, ardada 19 wax ka hooseeya keenay isku darka finalka iyo fiisiga. waxaa kaloo ka saarayaa ardada keentay 96 isku darka fiisiga iyo finalka. inta haddii aan kala jiro 20 baa isoo haray. okay, waxa leeyahay galaaskaasi chance system ayaa lagu xisaabin doonaa darajadiisa, yacni darajadooda fasalka urtalamaagiisa ayaa lagu xirayaa. tusaale kale aan soo qaadano, isla fasalka loo baan soo qaadanay ardaya 25 arday baa dhigata. laba arday imtixaanka ma aysan gelin, hal arday maqnaansho ayaa lagu haystaa. laba arday fiisiga iyo finalka marka la isku daro waxay keeneen 19 wax ka hooseeya. hal ardayna waxa uu keenay 96 wax ka sareeya. haddaba galaaskaasi chance system ma loo fiirin doonaa mise looma fiirin doono? 25 baa waxa ka saaraya ardada finalka aanan gelin, ardayda maqnaanshiyaha ku hadhay. waxaan ka saaraya ardada keentay 19 wax ka hooseeya. waxaan ka saaraya ardada keentay 96 iyo wax ka sareeya. haddii aan kala jaray 19 arday baa soo haray. 19 maadaama ay soo hadhay, galaaskaasi chance system laguma dabaqayo. waxa lagu dabaqayaa xeerkii hore ee jaamacadda mutlaq Erlanderme ayaa lagu xisaabinaya. haddaba asxaabi, maadaama arday aan nahay, imtixaanka markii la soo dhajiyay inteena badan waxaynu aragnaa xuruuf baana loo soo dhajiyaa. xuruuftaasi a b a b p a p b b c c b c c c d d c d d. waxaa jira wax la katsaysa, yacni intee bay u dhigantaa. haddii aad aad keento waxay u dhigantaa 4. a b haddaad keento 3.75, b a waa 3.33, BB waa 3, BC waa 2.75, CB waa 2.3, CC waa 2, CD waa 1.75, DC 1.33, DD waa 1, FF waa 0. ardayay ama asxaabay, xuruuftaasi waa markii la isticmaalayo mutlaq Erlanderme weeyaan. laakiin chance systemku kan ma la fiirin doono.
chance systemka mid kala fiirin doono waa arki doonaa. haddaba asxaabi intaasi waxa kaloo aan rabaa ardayga haddii uu keeno c c wax ka hooseeya yacni c d d c d d f hadduu kuwaa keeno darajo lama hadiye maahan, waa darajo aan sharaf lahayn. ardaygu intuu iska ilaalin karo ha iska ilaaliyo darajooyinkaas. haddaba asxaabay note يعني waxaan chance systemkii 20 arday baa loo baahan yahay. haddaba chance systemka asxaabay 20ka arday waxa lagu leeyahay fiiri ardaygii keena final notekiisa notekaaga ama imtixaanka finalka ardaygii keena 34 iyo wax ka hooseeya automatically ff baad qaadanaysa. tusaale ahaan oo kale fiisigii waxaad keentay tusaale oo kale 60 finalkiina 33 ff waad dhacday. sidoo kale ardaygii isku darka fiiseegiisa iyo finalkiisa yani haan bashari noodkiisa uu ka hooseeyo 34 ff baa la siinayaa automatically. yani maxaan ula jeednaa automatically jaamacaddu maxay ula jeedaa tusaale waan arki doonaa example sax baynu soo qaadan doonaa. sidoo kale asxaabay ardaygii haan bashariga yani isku darka fiiseegiisa iyo finalkiisa keena 90 iyo wax ka sareeya buu automatically qaadanaya. 90 iyo wax ka sareeya soo noqonaya 90 91 92 93 94 95 96 ma ku jira maya. xeerku muxuu ahaa chance systemka 96 iyo wixii ka sareeya laguma xisaabin doono. chance system haddaan xisaabiyo arday 96 7 8 9 keenay systemka iguma jiro kuma laguma arki karo. sidoo kale arday 9 iyo wax ka hooseeya keena laguma arki karo. yani markaan ku leeyahay 34 ilaa wixii ka hooseeya macnaheedu maxaa loola jeedaa 20 ilaa 34 darajada u dhaxaysa. haddaba asxaab automatically maxaan ula jeedaa waxa lagu leeyahay fiiri finalkaagii haddaad 34 wax ka hooseeya keenta automatically ff baad qaadanaysaa. fiisigii ilaahuma 100 keento automatically. isku darka fiisigaaga iyo finalkaaga haddaad keento 34 labada markii la isku daro automatically ff baad qaadanaysaa. isku darka fiisigaaga iyo finalkaaga marka la isku daro haddii aad keento 90 ilaa 95 automatically baad qaadanaysaa. automatically daasi maxaa loola jeedaa example baynu ku arki doonaa. haddaba asxaabi chance systemku intaasi waa automatically. haddaba chance systemka asxaabi markaynu xisaabin doono saddex wax baan u baahanay. kow celceliska fasalka yacni ortalamaanka fasalka. labo standard deviation oo ah ardadatan darajada ay ku baastay imisay isu jiraan. yani ardadatani ma arday waxa weeyaan dhibcayaashoodu aad ay u kala sarreyso miya mise waa arday isu dhowdahay. tusaale arday baa wuxuu keenay 80 ardayna wuxuu keenay 20 gaab intee leeg baa u dhaxeeya gaab aad u weyn baa u dhaxeeya. maadaama gaab aad u weyn u dhaxeeyo standard deviation waxa la yiraahdaa gaabka labada arday u dhaxeeya ayaa la yiraahdaa standard deviation. sidoo kale asxaabi waxaan u baahanahay wax la yiraahdo wadarta fiisaha finalka ama haan bashari. يعني chance system marta ina ogaato saddex mid baad u baahan tahay celceliska fasalka standard deviation fasalka iyo darajada adigu aad keentay oo haan bashari noodkaaga ah fiisigaaga iyo finalkaaga. haddaba asxaab standard deviation sida loo xisaabiyaa qaarkiin baa laga yaabaa inay dhahaan standard deviationka waxa kan xisaabtiisu sida loo xisaabiyaa. arday standard deviation haddaad rabto inaad xisaabiso waxaad samaynaysaa darajada arday kasta oo ardayda ka mid ah fasalka baad qaadanaysaa waxa aad ka jaraysaa ortalamaanka fasalka. darajada kaaga soo baxda waad isku weergareynaysaa meel baad ku qoranaysaa fasalka oo dhan saasaa samaynaysaa. arday baad soo qaadanaysaa ardayga koowaad intuu keenay ka jar ortalamaanka fasalka isku weergaray meel ku qor. ardayga labaad sidoo kale ardadaasoo dhan waxa ay keeneen isku dardar waxaad u qaybinaysaa ardada tiradooda inta ardadu ay dhan tahay hal laga jaray kadib intaasaa root ka saaraysaa inta kuu soo baxda ayaa waxaa la yiraahdaa standard deviation. saasaa loo xisaabin doonaa jaamacadduna sidaasi ayay u xisaabin doontaa. haddaba asxaabay qaarkiin waxaa laga yaabaa imtixaankii finalka in loo soo dhejiyey ama markii loo soo dhejiyo tusaale ahaan oo kale 60 loo soo dhejiyey ama 70 loo soo dhejiyey ama 71 loo soo dhejiyey. jadwalkan uu la soo baxayaa wuxuu leeyahay 71 ob baan keenay ardayay ma aad keenin waanad keentay. maxaa loola jeedaa ardayay tablekan jaamacaddu ay soo dhigtay darajada adigu aad keento yacni haan bashari noodkaagu ardayay haan bashari noodkaagu ardayay
kuma fiirsan kardho waxaad ku fiirsanaysaa garaafka meesha ugu hooseeya akhri maxay tiri note fairy standard t-score yacni jaamacaddu waxaa garaafka aad ku fiirsan doontaa darajo la yidhaahdo t-score t-scorekaasi inta aad ka keento garaafkan markaa fiiri laakiin adigoo t-scoreka aadan la soo bixin garaafakan darajada aad keento kuma fiirin kardho haddaba t-scoreka maxaa lagu helaa asxaabi t-scoreka waxaa lagu helayaa inta aad keentay finaalkaagii fiiseegaagii darajo ma keentay haa darajadaa waxa aad ka jaraysaa celceliska fasalka ayaad ka jaraysaa yacni maxaad ka jaraysaa celceliska fasalka ayaad ka jaraysaa kadib celceliska fasalka markii aad ka jadho celceliska fasalka markii aad ka jadho waxaad u qaybinaysaa standard deviationkii hadda ayna soo sheegnay baad u qaybinaysaa 10 baad ku dhufanaysaa 50 baad ku daraysaa t-scorekaaga darajada kaaga soo baxda halkaasi baa garaafakan iyo tablekan ku fiiri doonta 60 baan keenay garaafka saa u fiiri ee baan keenay b baan keenay ma jidho t-score baad xisaabinaysaa inta aad keentay isku darka fiiseegaaga iyo finalkaagii celceliska fasalka ka jar standard deviationka fasalka ka jar 10 ku dhufo 50 ku dar darajada kaaga soo baxda garaafkan markaa fiiri haddaba asxaabi example baan soo sameynay examplekaasi waxa weeyaan example waxaan soo qaatay 30 arday baan soo qaatay oo ardayda ka mid ah asxaabay 30 arday studentskii baan soo qoray halkaana waxaan ku qoray gradeskoodii baan ku qoray dhibcaha ay keeneen dhibcaha halkaa igu qoran ardayay waa dhibcaha ardaygu uu keenay marka la isku daro fiiseegiisa iyo finalkiisa si fiican halkaa ula soo halkan averageka ardayda ayaan soo qaaday oo maxaan sameeyey dhammaan darajooyinka ardaydu ay keentay oo dhan baan isku dardaray kadibna maxaan u qaybiyey tirada ardayda teeda kale waxaan rabaa inaan kuu sheego 30 arday waa 30 arday oo laga saaray 30 arday oo laga saaray ardaydii imtixaanka aanan gelin kuma jidho ardaydii maqnaanshiyaha 30 arday kama mid aha ardaydii keentay fiiseega iyo finaalka marka la isku daro 19 kuma jidho ardaydii 96 wax ka sareeya keentay kuma jidho intaa wixii laga saaray baa ardaydaasi weeyaan haddaba asxaabi averagekii baan halkaa ku qoray halkaana waxaan ku qoray waxa la standard deviationkii baan ku qoray yacni ardaydan darajada ay keentay inteeba isu jidhaa halkaana waxaan ku qoray t-score haddaba standard deviationka maxaan ku yidhahdaa maxaa lagu helayaa standard deviationka waxaan ku yidhahdaa waxaa ku helaysaa darajada arday kasta darajada uu keenay ortalamaaka fasal ka jar square garay ardadoo dhan saa ku sameey u qaybi tirada ardada oo hal laga jaray t-scorekana maxaan ku helaynaa baan ku dhahay celceliska arday celiskaa keentay adigu taad keentay baad waxaad ka jaraysaa fasalka ortalamaagiisa standard deviation fasalka u qaybi 10 ku dhufo 50 ku dar haddaba standard deviationkiina waa la soo baxay t-scorekaygiina waa la soo baxay halkaana waxaa leedahay waa xarafkii weeyaan haddaba asxaabi ardayga koowaad aan soo qaato ardayga koowaad markay jaamacaddu waxa weeyaan sida ay ula soo baxdo t-scorekeeda markay sida ay u xisaabiso jaamacaddu waxay ku laabanaysaa xeerkeedii oo xeerkeedii muxuu ahaa ardaygii final noodkiisa uu ka hooseeyo 34 automatically waa ff anigana hadda maxaan ku dhahay gradeskayga kuma jiraan kooxdaasi automatically kooxda aniga waa iska saaray sababtoo ah xagga aniga waxa igu qoran haan bashari baa igu qoran marka ardaydaasi aniga waxa ka soo qaaday inaysan jirin baan ka soo qaaday xeerka labaad jaamacaddu ay fiirinayso waa maxay waxay leedahay ardaydii fiiseegooda iyo finaalkooda marka la isku daro keena 34 iyo wixii ka hooseeya ffc aan fiiriyo marka ardayga saddexaad fiiri 20 uu keenay automatically ff ardayga hadda 80 ka fiiri 20 waxaan siinayaa 34 33 baan siinayaa fiiri 30 iyo 3 ff 34 c ff 35 siinayaa fiiri 35 dc macnaheedu automatically ff baad qaadanaysaa xeerka saddexaad ee jaamacaddu waxay ku leedahay ihaamku ardaygii keena 90 iyo wixii ka sareeya macnaheedu
sagaashan, sagaashan iyo kow, sagaashan iyo laba, sagaashan iyo saddex, sagaashan iyo afar, sagaashan iyo shan ee automatically sii siddeetan iyo sagaal aan siinayaa fiiri siddeetan iyo sagaal be mujeda siddeetan iyo sagaal baan siiyey muxuu qaatay be sagaashan aan siiyo bar sagaashan iyo kow, sagaashan iyo shan sagaashan iyo lix ma siiya maya ma siinayo sababtoo ah aniga xisaabtayda aan dejistay wax aan automatically haddaan sagaashan iyo lix siiyo xeerkaygu iskhaldaya oo waa maxay maxaan idhahday soddonkaa arday waxaa laga saaray kuma jiraan arday keentay sagaashan iyo lix iyo wax ka sarreeya kuma jidho ardada sagaal iyo toban iyo wax ka hooseeya kuma jidho marka ma siinayo haddaan siiyo wuu siinayaa laakiinse dee aniga jan systemka kumaba jiro ardadaas laguma xisaabin waxaa laga is dhahdo imtixaan baa lai soo dhejiyey sagaashan iyo waxaan keenay lix baan keenay baa qaadatay dee hadal ma jiro sagaashan iyo wixii ka horeeyo oo dhan ilaa boqol baa keentay laakiin jan systemka adigu ma gelayso automatically halkaasaa fariisanaysaa maadaama sagaashan iyo lix wax ka sarreeya aa keentay asxaabi waxaan rajaynayaa saddexdaa xeer waa isla fahanay haddaba soddon iyo afar wixii ka hooseeya waa ff sagaashan, sagaashan iyo kow, sagaashan laba, sagaashan saddex, sagaashan iyo afar, sagaashan iyo shan okay haddaba ardayga kani feeri waxaan isweydiinayaa oo aan raba inaan ogaado sagaashan ardaygan aan siiyo weli waa waxaan isweydiinayaa xeerku wuxuu ku lahaa haddaaye ardaygu sagaashan iyo wax ka sarreeya keena automatically maxaan kuu dhahay galaaska ortalmaagiisu waa imise waa 41 jadwalka markan imow marka okay jadwalkaygu wuxuu qaybsan yahay ustun bashari arday aad u guuleysatay mukammal wanaagsan joogii aad u wanaagsan iyo wanaagsan orta usto xoogaa sarreysa orta dhex sayif daciif kutuxun haddaba galaaskaygu xaaladeebu ku jiraa 41.7 waa sayif fasalka 41 oo cafwan waa kutuway fasalkaygu 42 iyo wixii koosay waa kutuwa okay t score ka fiiri automatically ujeedadan ku sheegaya ardaygana meequu keena t scorekiisu 69.5 be ardaygana marka fiiri muxuu qaadan lahaa sida saxda ah be hadda soo cadaalad darro maaha adoo 90 keenay in lagu siiyo be jam systemka markaan ku leeyahay automatically saasaa laga wadaa 90 iyo wax ka sarreeya automatically waa sababta ardayga si saxda hadii t scorekiisa iyo jadwalka la isu fiiriyo ardaygan halkaas ku jira moogtahay 69 be ardaygani be buu qaadan lahaa laakiin si maadaama 90 iyo wax ka sarreeya oo keenay automatically baa leeyahay tusaale ardaygan waxaan siinayaa 32 maxaan ku yiri automatically aan fiiriyo okay aan fiiriyo marka t scorekiisu waa 46 ortalamaagaan tegay kutu weeye 46 aan baaraya 46 46 ardaygaasi muxuu qaadan lahaa dc sida saxda ardaygaasi muxuu qaadan lahaa dc laakiin waa riday maxaa u ridayaa sababtoo ah xeerku wuxuu ku leeyahay ardaygii isku darka fiiseegiisa iyo finaalkiisa 34 iyo wixii ka hooseeya keena automatically ardayga automatically macnahaasay ku fadhidaa yacni adigoo t scorekaaga uu sarreeyo ayaa waxaa laga yaabaa in ff aad keento marka saddexdaa kooxood ha la iska ilaaliyo haddii finaalkaba aad 34 ka hooseyso automatically-ba haddii fiiseegaaga finaalkaaga marka aad isku dalo 34 aad keento automatically-ba haddii aad keento 90 iyo wax ka sarreeya ilaa 95 automatically baa qaadanaysa fiiri ardaygaasi waa 69 be buu qaadan lahaa laakiin baa la siinayaa wuu ka baxsan yahay haddaba haddaad keento ka waran 34 baa lagu dhacayaa 30 iyo waxaan keenay 5 baan keenay ardaygaasi labaad meequu qaadan karaa dc aan fiiriyo marka aan fiiriyo 35 fiiri darajadaad keentay waa hilmaamaysaa fiiri ardaygani 35 uu keenay t scorekiisi maxay isu bedeshay 47 marka darajadaa keento marnaba ku xisaabtamin 35 ardayga kani tan waa ignore gareynayaa t scoreka la xisaabsan doona
okay galaaska ortalamaagiisa waa 41 waa ardaygana meequu keenay 47 galaasku waa halakan 47 DC mujada DC haddaba asxaabay ardaygaas tusaale ahaan oo kale 35tiisaas iska haysto ardaygana tusaale ahaan oo kale 50 keen yani haddii mar 35 aad keento khasab maaha DC inaad qaadanayso maaha tusaale ahaan oo kale ardaygana 50 keenay fiiri adu 35taadii baa iska haysataa ardaydu darajo fiican ay keeneen ku wada baaseen tusaale kana 50 uu keenay adu 35taadii baa iska haysataaba kana 60 uu keenay fiiri ardaydii xoogaa way kacday 35taadii maxay isu bedeshay DD hada fiiri DC baa haystay DD bay isu bedelaysaa macnaheedu waa maxay chance systemku marka waxa weeyaan darajada aad keentay kuma xirna tusaale ahaan oo kale ardaygana isna wuxuu keenay 46 ardaygana wuxuu keenay 78 ardaygana wuxuu keenay 89 ardaygana wuxuu keenay tusaale ahaan oo kale 45 ardaygana waxa uu keenay tusaale ahaan oo kale darajadaadan usoo dhaweynayaa 35 baad u haysatay 36 buu keenay min halkana kana wuxuu keenay 37 kana wuxuu keenay 38 kana wuxuu keenay 39 kana waxa uu keenay 40 57 marka fiiri asxaabi ardaydu hadii marka halkaasi macnaha waxa rabaa inaan ka tuso khasaaraha faa'iidadu darajo hoose haddaad keento galaasku hadduu wanaagsanaado hoos baa usoo dhacaysa galaasku kullama uu xumaadana waa ficnaanaysaa adigu ila waa lagula xun yahay moogtahay hadda kan 30 sii darajooyinka wada hoose aan siinayaa hadda DC fiiri hal arday 35 adigoo haysataa marka macnaheedu waxa weeyaan arday imtixaanka darajada aad keenayso haddii aadan isku darkaagu 34 uu kor uga maro darajada aad keenayso adiga kuma khusayso galaaska ku xiran tahay galaasku haddii dadku ay ka hooseeyaan darajadaada ay keenaan inaa wanaagsanaato waa macquul inaa xumaatana waa macquul laakiinse ardaygii finalkiisu 34 ka hooseeya automatically automatically waa isla fahnay sababta tii scorecaagi baa laga yaabaa inuu kaco oo hadhow saa ku baasto si aadan ciyaaraadan ugu baasin automatically waa lagu ridayaa sidoo kale isku darka imtixaankaaga finalka ee fiisigaaga 34 hadaa ka hooseyso waa lagu ridayaa si tii scorekaagu ardada aysan ku kicin ardada ku ciin ka dhamogtahay ardaygii 90 iyo wax ka sareeya keenana ardada laga yaabaa inay xumaato ay soo celiso marka ninkaasaan loo soo celin waa la fasaxayaa adigana si aadan u soo kicin waa lagu celinayaa asxaabin waxaan rajaynayaa yani cham systemku inayn aad isla fahno marka dhammaan ardada hadaa u fiirsato darajada ay keeneen tusaale waa uga qayb qaadan kartaa arday kasta inaad fiiriso average-ka standard deviation-ka kaliya waxaa isu fiirisaa average-ka fasalka iyo tii score-kaas nin kasta wuu kuu soo baxaya hadda ardaygaa 90ka 33 hadaa siiyo automatically laakiin tii score-kiisa waa 4 yani tii score-kiisa wuu ku baasay laakiin maxaa riday haan basharigiisa ayaa riday asxaabi waxaan soo qaadanayaa marka laba tusaale khasam yaa markaas in jam system kala isticmaalo laba tusaale ayaan soo qaadanayaa laba imtixaan asxaabi waxa weeyaan imtixaanka marka lagu soo dhajiyo meesha ugu horeysa aad fiirin doonto hadii ay lagu soo dhajiyo waxa weeyaan xisaab shakil yani imtixaanka markii la soo dhajiyo sanuuj dramiga noocu yahay imtixaanka waa la soo dhajiyay xilliga la soo dhajiyay qiimeynta baali ardadu way isku xirnaayeen yani maxaa la rabay baali jam baa lagu xisaabin lahaa ama kiinamaantis iga soco xisaab shakil fasalkii maxaa lagu dabaqay mutlaq yani chance system laguma dabaqin waxa la inay isweydiiso dhaado dimacan halkan baali baa la rabay yani chance system baa la rabaa in lagu xisaabiyo chance system hadduu shaqayn waayo dee mutlaq baa la imanaya tusaale galaaskaasi waa 89 arday laakiin maxaa lagu xisaabiyey mutlaqdii laan dirme yani systemkii hore jaamacadda why maxaa dhacay sababtoo ah 89 ka arday waxa laga yaabaa arday fara badan imtixaanka inaysan gelin waa laga saaray sidoo kale waxa laga yaabaa inay jidho arday fara badan oo dawaam silig lagu reebay waa laga saaray waxa laga yaabaa inay jidho arday fara badan oo finaalkooda iyo fiisiga marka la isku daro 9 iyo 10 ka hoos madhay waa laga saaray waxa laga yaabaa inay jidho arday fara badan oo klaaska markaan qiimeeyno ma ku jidhaba hal arday baa DC keenay marka klaaska kani maadaama uu aad u xun yahay fiiri FF يعني كلاس كواحد بقلبها أرضي أدو فرير سديت فيري
siddeetan iyo sagaalkii wayba galeen ba fiiri DC-ga ardayga ugu sarreeya wuxuu keenay 59.99 siddeetan iyo siddeed ardayna way dhacday macnaheedu maxaa weeye siddeetan iyo siddeedda arday waxa ay keeneen soddon yacni jam system waxay keeneen 19 wax ka hooseeya marka te jam system hal arday miyaa loo fiirinaya maya xeerka 20 arday ayaa la rabay galaaska jam system laguma xisaabin isla galaas kale xisaab shakilkiisa fiiri waa baali macnaheedu waa maxay waa jam system baa lagu dabaqay jam system galaaska in lagu dabaqayna waxa garan kadhaa sinif ortalamasiga lagu soo qoraya fiiri laba weeyaan sinif ortalamasiga fasalka ortalamaagiisa sidoo kale sinif ortalama katilaan orajisaysiga ardada imtixaanka jam systemka gashay darajada ortalamagooda adiga hadhow taama ku khusay doonta adiga maxaa fiirsan doontaa sinif ortalamaga fiirsan doonta yani imtixaankii arday fara badan baa laga saaraya kuwa imtixaanka aanan galayn kuwaas oo dhan faraha ka qaad adiga waxa laga rabaa oo kaliya sinif ortalamaga hadaba standard submaga ka standard deviation ka isfiirinayni standard deviation kiina waa ka ardadaas darajooyinkooda waxa is jidhay 16.2 aniga graafkaygu ardadana imise isu jidhaa يعني أفرت أنا جوا سجال يوتيوب يعني أرددو آد بحوجة أو كل دول ده أصحابي مركز شام سيستم كو وسيستم كا نوعه مركز أردي ده امتحان كاجا مركز حلقة يابا إن المركز روجاتو ما شان سيستم باليجو حسابي مثل مطلق ديال لاندر بيه وحنا فائدة بدن شان سيستم اللي جوه حسابي صبتوا أفرتني سجال واجو هروات كده عايز لكن هذا أفرتني سجال كم ده عايزه يعني ما حد كده عايز هذا عيتان كاجا الله هو ما حي وصدني أفر isku darkaaga marka la isku daro marka 34taada darajada adigu aad keentona marna saameyn adiga wax weeyaan male hadaa 85 keento macnaheedu waxa weey ku xisaabtamin waxa lagu xisaabin doona ti scorekaaga ayaa la xisaabin doona hadaba asxaabi waxaan rajeynayaa inta inaynu isla fahanay chance systemka iyo xogta iyo qaabka loo xisaabin doono hadaba asxaabi chance systemku waa system noocaas sidoo kale asxaabi wax weeyaan waxaan rabaa arday baa laga yaabaa chance system in loo wada xisaabiyo 57 keentay anna 57 keenay adiga 57daadii waxa ay ku goysay tusaale ahaan oo kale CC anigana 57daadii waxa ay goysay DC adaa iga sareeya isku darajaan nahay sababtu waa isku kulliyad manihiin sidoo kale waxa laga yaabaa labadeeno isku kulliyad ah ina hadana adiga CC ku goyso anigana DC goyso sabab isku kulliyad baa dhiganaa sababtoo ah kala shifti baan adiga subaxa aada ana habeenaanada sidoo kale asxaabi ardada reexamka ama butlameega imtixaanka reexam gali doonta ortalamaga fasalka ma isbedeli doono sidoo kale standard deviation ku ma isbedeli doono sidaasi ha ula socdaan hadaba asxaabi waxaan rajeynayaa inaynu isla fahanay chance systemka iyo waxa uu yahay xogtiisa hadaba asxaabi inta aynu kulmi doono fiidiyowga xiga insha Allah waxaan rajeynaynaa ama aan ku hanweynahay inaan soo diyaarino xarfihii markii ardayga loo soo dhajiyo tusaale ahaan oo kale ardaygii waxa loo soo dhajiyay ee baa la soo qoray ardayga marka waxaan ku hanweynaa inaan soo diyaarino fiidiyow ah sidee baan u xisaabin karaa marka 1.5 baan keenay dunamka intaasaan keenay fiidiyo noocaas ayaan jeclay inaan soo diyaarino hadaba asxaabi fiidiyowgaasi haddii aad aragtaan in baahi badan loo qabo qaybta commentiga ayaan jeclaan lahayn inaad ugu reebtaan haddii arday fara badan ama asxaab fara badan wax weey codsato insha Allah waan soo diyaarin doonaa haddii laga maarmana wax weeyaan fiidiyowgaasi waxaan u arkaynaa mid laga maarmay hadaba asxaabi fiidiyowgan intaasaan ku soo gabagabeyn doonaa inta asxaabi aan ku kulmi doono fiidiyowga xiga waa bahyaweynta Zaytuni College isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaanillah